بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاك الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسلك السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبطلون وبعد waxaanu haddana gelaynaa saxaabi kale taarikh nololeedkiisa waa saxaabiga la yidhaaho waxshiy bnu xarbi waxshi taariikhdiisu waxay leedahay cajiib waxaa ka mida taariikhdiisa waxyaalaha cajaa'ibta leh wuxuu dilay saxaabada ninkii ugu geesisanaa ugu cibaadada badnaa nabigu waa uu ugu jeclaa sala allahu wasalam calayhi nabigana qaraabo la ahaa adeerkiis ahaa ayuu dilay ninkani markaas gaal uu ahaa uu wax dilaayo ka bacdi haddana wuxuu dilay gaalada ninkii ugu sharta badnaa markuu soo islaamay waxshi ninkan waxaa la yidhaha waxshiy bnu xarbi wuxuu u dhashay nin madowah ee xabasho ah ayuu ahaan jiray saxaabigan qiimaha badan waxshi waxaa lagu kunyay jiray abidasama wuxuu iska leeyahay saxaabigani sheeko aad u tiiraanyo badan oo wadnaha dhiig dhigta ayuu iska leeyahay bal dhegayso sheekadan tiiraanyada le wuxuu yidhi waxshi waxaan ahaa jiray buu yidhi waxaan addoon u ahaa jiray nin la odhan jiray jubayr ee gaal ahaa ninkaas ee addoonsan jiray adeerkiis oo la odhan jiray ducayma ayaa lagu dilay dagaalkii beder waxaana toogtay buu yidhi nabiga adeerkii sala allahu wasalam calayhi xamsatu ibni cabdilmuطalib ayaa toogtay aad ayuu uga murugooday adeerkii laga dilay wuxuuna ku dhaartay sanamka laata iyo cusa inuu adeerkiis u soo aar gudi doono uuna dili doono qofkii adeerkiis dishay waa xamse wuxuu sameeyey buu yidhi ninka ay addoonsan jiray inuu fursado uu ku khaarijiyo xamso uu la gaado wakhti saa u badan kama soo wareegin buu yidhi ilaa quraysh ay ka go'aansatay inay u baxdo dagaalkii uxud si ay nabi moxamed sala allahu wasalam calayhi guluf dagaal ay ugu qaadaan gaaladii reer quraysh quraysh waxay isku soo dubaridatay ciidamadeedii waxaana hoggaanka u hayey abu sufyaan ayaa waxa uu go'aanka ku gaaray ciidamada nabiga la dagaalamaya sala allahu wasalam calayhi in lagu daro kooxo haween ah oo dumar ah si dumarkaasi ay u ayidaan amaba ay u taageeraan ragga ciidankana ay xamaasad qalbigooda ay ugu abuuraan haddaba dumarka dagaalkaas ka qayb qaatay ee dhinaca gaalada waxaa ka mid ahaa xaaskii abu sufyaan ee la odhan jiray hindu bintu cutba gabadhaas hindo la yidhaah oo xilligaas gaalo ahayd waxa horay loo dilay aabbaheed isagoo gaala adeerkeed walaalkeed ayaa kulli lagu laayey goobtii beder markii ciidankii laysku dubariday waxa isoo fiiriyey buu yidhi waxshi ninkii aniga i addoonsan jiray ee la odhan jiray jubayr ibnu muطcim wuxuuna yidhi waxshiyow ma rabtaa inaan addoonnimada kaa cafiyo oo nin xora aad noqotid waxaan idhi buu yidhi see ku heli karaa taa waxaan idhi buu yidhi aniga ayaa kuu ballan qaadaya inaad addoommanimada aad ka fakatid waxaan idhi buu yidhi see igu ballan qaadi inaan addoonnimada aan ka fakado see igu ballan qaadi wuxuu yidhi haddaad disho xamza ibnu cabdilmuطalib xamse haddaad disho oo nabiga adeerkiisa xurata waa ku xoraynahay waxaan idhi buu yidhi
oo yaa ii ballan qaadaya inaad ballankaas oofido yaa ballankaas inaad oofiso maxaa kalsooniyaho i muujinaya oon ku kalsoonaan karaa wuxuu yidhi qofkaad doonta walow ushidanna calىa dalika annaasa jamiica dadkao dhan aan markhaati ka dhigi buu yidhi ummaddoo dhan ayaan markhaati ka dhigi waa yahay ba yidhi waa dila nabiga adeerkiis haddaad i xoraynayso waxshi wuxuu yidhi waxaan ahaa nin xabashi ah waxaan aad u iqiinay shiishka ma gefi jirin shiishka waxaan soo qaatay eebadaydii waxaan iska soo daba galay ciidankii meesha ciidanka ugu dambeeya ayaan iska soconayey dumarka meel u dhow ayaan iska hadaafahayey buu yidhi maxaa yeelay aniga dagaalka dan kama lahayn dagaalka dhan dantayda ugu weyn waxa weeye inaan toogto nabiga adeerkii sala allahu wasalam calayh markaan soo agmaro gabadhii la dhihi jiray hindo oo ay aragto eebadayda walac 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 leh oon ku dili rabo nabiga adeerkii sala allahu wasalam calayh waxay dhihi jirtay waxshiyow na daawe oo dil khaariji nabiga adeerkii sala allahu wasalam calayh markaan gaarnay bay tidhi goobtii uxud labadii ciidanna ay kulmeen waan soo baxay bay tidhi si aan u raadiyo xamza waan soo baxay buu yidhi waxshi anoo raadinaya xamzo waana iqiinay buu yidhi yo xamzo nin qof ka qarsoomi karaa mama ahayn maxaa yeelay baal goroyo ayuu madaxa suran jiray si uu dadka u tuso inuusan baqaynin oo cabsanaynin wax yar markii la joogay waxaan arkay buu yidhi xamzo oo dhex boodaya dagaalkii sidii libaax oo kale saa u boodahaya ayaan arkay buu yidhi dadkana seeftiisa inta ula baxay seefta dadkii ku shafahaya ayaan arkay buu yidhi oo gaaladii oo dhan ay ka wada baqahayaan laga wada cararayo wuxuu yidhi meel geeda ayaan ugu dhuuntay buu yidhi geedkaasaan ku sugi buu yidhi inuu ii soo dhowaado waxaa iiga hormaray buu yidhi anoo dil isleh nin la odhan jiray sibaaca wuxuu yidhi baariznii yaa xamza baariznii yaa xamza xamsow car ii soo bax car ii soo bax xamza u soo baxay asagoo dhahaya ii kaalay gaalada wiilkeediiyow kaalay asagoo dhahaya ii kaalay xamso seefuu leefsiiyey ninkii gaalka ahaa gaalkii waa la dilay waa dhacay buu yidhi markaas meel aan raalli ka ahay ayuu ii soo istaagay buu yidhi xamso oo aan ka tooga karo ayuu ii soo istaagay waxaan lulay buu yidhi warankiian saa u lulay buu yidhi si shiishka aan u qurxiyo markii gacantii ii xasishay oon ogaaday marka alleleh ninka shiishku waa ku toosan yahay ayaan ku tuuray buu yidhi warankii warankii wuxuu ka galay uu yidhi caloosha markaasuu wuxuu ka baxay labadiisa lugood inta u dhexaysa ayuu warankii ka dusay bul warankii markaan ku dhuftay asagoo sakaraada nabiga adeerkii sala allahu wasalam calayhi ayuu laba tilaabo dhinacayga u soo qaaday asagoo isku dayaaya geesinimadiisa inuu iga aarsado u dilo waana nin sakaraada laba tilaabo ayuu soo qaaday labadii tilaabo markuu soo qaaday waa dhacay uu yidhi naftigaa ka baxday markaan dilay nabiga adeerkii sala allahu wasalam calayh dan kale anugu dagaalka kama lahayn buu yidhi meelaan iska fadhiistay yuu yidhi dagaalkiiyaa kululaaday buu yidhi asxaabtii nebi moxamed sala allahu wasalam calayhi ayaa kala carareen uu yidhi oo laga adkaaday dilkii asxaabtii ku batay markaasaa gabadhii gaaladda ahayd ee la odhan jiray hindo ayaa waxay dul meeraysatay meydkii muslimiinta dadkii laga laayey markaasay waxay dilaacisay calooshii muslimiinta
waxay goysay dhegihii iyo sankii indhihiina waa ka bixbixisay waxay ka samaysatay dhegihii iyo sankii muslimiinta dhego iyo katiinado ay qoortay ku xiratay wixii dhego iyo san ahaa muslimiinta qoortay ku xiratay naagta ciilka ay islaamka u qabto balo fiirso waxay ii soo siibtay dhegadhegaheedii iyo katiinadii markaasay tiri waxshiyow haddaad geesigii nebi moxamed adeerkii aad dishay dhegadhegahaygan hadiye u qaado iyo abaalgud iyo katiinadaydan qaado ayay itiribay xifdina yay kaa lumin waa qaali dagaalkii uxud markuu sidaa ku dhammaaday ayaa waxaan ku idhi ninkii i addoonsan jiray jubayrow hadda i xuree maadaama aan shardigii oofiyey halkaas ayaan ku xureebay buu yidhi markaan dilay oo dilkii aan fuliyey nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi ayaa mar walbaba waxay sii siyaadaysay buu yidhi diintaa sii xoogaysanaysay islaamka ayaana caalamka ku sii xoogaysanayey muslimiintuna way sii badanayeen marba mar ka sii dambaysa nebi moxamedna wuu sii xoogaysanayey sala allahu wasalam calayh haddaba islaamku markuu sii xoogaystaba cabsi iyo welwel iyo walaac ayaa ila soo dersa buu yidhi maxaa yeelay waxaan isleeyahay ama lagu qabtaa oo adigana lagu dilaa walaacii waa igu sii weynaaday markuu nebi moxamed soo galay magaaladii maka gacantana uu ku dhigay sala allahu wasalam calayh magaaladii markuu nabigu qabsaday sala allahu wasalam calayhi ayaan waxaan u cararay dhinaca daa'if si aan meeshaas ugu noolaado oo ammaan aan ka raadiyo laakiin qoladii aan u tego daa'if magaaladii iyaguna kulligood waa wada islaameen magaaladii aan tegey kulligood iyaguna waa islaameen waxayna u direen wafdi inay la kulmaan nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh markaas ayaa ciil iyo shallaytay qabatay waxaan idhi talow mashaamaan aadaa mase yamanaan u cararaa mase adduunka meel kalan oon ku fakadaa jira talow maxaan sameeya wuxuu yidhi waxshi anigoo walaacsan ayaa nin saaxiibkeeya ila taliyey wuxuuna yidhi waryaa waxshiyow ma og tahay nebi moxamed sala allahu wasalam calayhi qof diinta islaamka soo gasha ma dilo hadduu qofkaasi 100 qof intuu gaalahay uu soo dilay hadduu qofku yidhaaho laa ilaaha ila allahu moxamedun rasuulullah ma taabanayo nebi moxamed ee oraboo iska islaamniyo ninkaas markuu ila taliyey ayaan go'aan qaatay inaan soo islaamo magaalada madiine ayaan soo aaday anigoo raadinaya nebi moxamed sala allahu wasalam calayh magaaladii markaan gaaray ayaan dadkii weydiiyey waxaana la ii sheegay nabigu inuu ku jiro masjidka waan u galay nabigii sala allahu wasalam calayhi aniga oo cabsanaya oo isdhahaya amaaba haddii lagu yidhaah waa kii adeerkaa dilay amuu qoorta kaa gooya anigoo isdhahaya nabigu sala allahu wasalam calayh markaan nabiga istaagay madaxiisa agtiisa ayaan waxaan idhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh markuu maqlay tawxiidkii ayuu indhihiisii kor u qaaday oo sidaa ii fiiriyey markuu i gartay inaan ahay ninkii adeerkiis dilay inaan ahay markuu i fahmay nabigu ayuu hoos u sii jeestay wuxuuna nabigu igu yidhi sala allahu wasalam calayhi war ma waxaa tahay waxshi miyaa lagu yidhaah waxaan idhi haa rasuulka ilaahayo waxaan ahay waxshi wuxuuna igu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi bal fadhiiso iiga sheekee sida aad u dishay adeerkaygii xamso iga sheeke waan fadhiistay waxaan uga sheekeeyey qaabkii aan u toogtay nabiga adeerkii sala allahu wasalam calayh sheekadii markaan dhammeeyey ayuu nabigu xagga u sii jeestay markaasuu wuxuu igu yidhi waxshiyow wejigaaga iga qari maanta wixii ka dambeeya yaanan wejigaaga arkin markaad masjidka joogto
gadaasheeda fadhiiso waxbaa igu kacaya markaan wejigaaga arko waxshiyo. maalintaa laga bilaabo waxaan iska ilaali jiray nabiga indhihiisu inay igu dhacaan. asxaabtu markii nabiga wejigiisa ay fadhiistaan anigu nabiga dhabarkiisa ayaan fadhiisan jiray ilaa rasuulku uu ka geeriyoodo. saasaan ku sugnaa sala allahu wasalam calayh. haddaba waxshi wuxuu yidhi anigoo og markuu qofku soo islaamo inaan wax dembiya loo haysan, haddana waxaa iga fuqi waayey dareenkii naxdinta lahaa oo aan ku toogtay nabiga adeerkii. waxaan raadsaday buu yidhi wax aan isaga dhaqo taariikhdaasna aan ku baabi'iyo. rasuulku sala allahu wasalam calayhi markii rafiiqulaclaa uu aaday hoggaanka islaamkana uu qabtay asayid abubakar asidiiq, qabiilkii reer banu xaniifana ay ka baxeen islaamkii, ayaa rasuulku sala allahu wasalam calayh wuxuu u diyaariyey ciidan. waxaan leeyahay madaxweynihii islaamka asayid abubakar ayaa wuxuu u diyaariyey ciidan la dagaalama musaylima, diintana ku soo celiya. waxaan isiri buu yidhi waxshiyow tan waa khaniimadaadiiya ka faa'iidayso, tanu hee waa khaniimadaadiiya ka faa'iidayso ayaan isiri. oo ninkaas shayddaanka ah ee nabinimada sheegtay soo toogo ayaan isiri buu yidhi. ciidankii muslimiintaan raacay. waxaan soo qaatay warankii aan ku dilay nabiga adeerkiisa sala allahu wasalam calayh. waxaan ku dhaartay buu yidhi inaan musaylimo dilo ama aan dhinto. muslimiintu markii dagaalkii ay dabaasheen oo beertii la magac baxday xadiiqatulmowt lagu kuusay ninkii nabinimada sheeganayay ciidankiisii, waxaan fiirsaday buu yidhi ninkii nabinimada sheegtay shayddaankii gaalkii weynaa si aan u toogto. waxaan arkay asagoo taagan oo seef saa u wata gaalkii ayaan arkay buu yidhi. waxaan arkay nin muslim ee ansaari ah oo asaguna isdhahaya gaalka toogo sida aniguba aan gaalka u gaadayo kale u gaadahaya. markaan ka istaagay meel aan raalli ku ahay eebadii ayaan saa u lulay si aan u toogto gaalka. waan ku tuuray, waa ku dhacay warankii gaalkii ku dhacay musaylima. isla markii warankii aan tuuray ayaa ninkii kaleo muslimkaasna waran iga daba tuuray buu yidhi. rabbigaa ayaa og talow maanigaa dilay gaalka mase ninkii kaleo muslimkaayo asna toogtayaa dilay, ma aqaan ninka dilay. haddaan ahay buu yidhi anigu inaan dilay ninkaas waxaan noqonahayaa dadka midkii ugu khayrka badnaay inaan dilay. macnaha waa markii sayidina abubakar ee dadkaa laga reebeen, dadka kii ugu sharta badnaayna waan dilay buu yidhi. waa kii musaylima la oran jiray. haddaba halkaas walaalayaal waxaa noogu dhammaaday taariikh nololeedkii ninkii la oran jiray waxshi. qofkii doonaya faahfaahin intaa ka badan inuu ka ogaado waxshi wuxuu kala xidhiiri karaa kitaabka la yidhaaho alisaaba usudulgaaba iyo kitaabka la yidhaaho alistiicaab libni cabdilbar iyo tajriidu asmaaءi الsaxaaba iyo tahdiibu tahdiib iyo alkaamil libni اlafir iyo taariikhu الطabri iyo imtaacu اlasmaac iyo siyaru aclaami nubala iyo almacaarif libni qutayba iyo taariikhu اlislaam lidahabi. kutubtaas ayuu kala xidhiiri karaa.